saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi aniga iyo laba nin oo kaloo ila socda ayaa nebiga soo waajahnay buu yidhi iyadoo gaajo daraaddeed aanan dhagaa wax ka maqlayn buu yidhi yacni cahdu saxaaba ee koowaad waa soo qaxeen waa soo hijroodeen xoole iyo wixii haysteen oo dhan waa lagala hadhay magaalada madiino yar bay yimaadeen ahlu safa dad badan baa masaajidka nebiga iska joogay aan waxba haysanin dabeetana almuqdad ibnu aswad wuxuu leeyahay aniga iyo laba nin oo kale annagoo gaajo daraaddeed dahabad asmaacunaa buu yihi wa absaarunaa min aljahd dhagahana wax ka maqlinin dhaana wax badan ka arkaynin ayuu nebiga isu soo bandhignay buu yidhi haddana baryadana waa ka xishoonayeen iyagoo caynkaasiya cid waxna siisana maanan helin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam baa yidhi buu yidhi warbalayna keena saddexdiiba wuu kaxeeyey laakiin muxuu nebigu haystaaye u siinaya gurigiisa waxaa jooga 3 neef oo riya ah saddexdii neef ee riyaa buu yidhi hala liso waa saddexdaasaa guriga jooga buu yidhi intaasaynu wada cabbaynaaye inoo qaybiya wuxuu yidhi waanu nimaadnaa waa lisnaa dabeetana saddexda iyadu inin baanu cabnaa in yarna nebigaanu meel u dhignaa marka uu nebigu yimaado calayhi salaatu wasalaam ayuu salaanaan ka hurdana toosinayn ka soo jeedaana maqlaya buuna salaamaa intuu masaajidka soo galo tukado ayuu salaantaana salaamaa buu yidhi dabeetana waxaanu soo qaadnaa intii yarayd aanu isaga u dhigno intii baanu siinaa maalintii dambe ayuunbaa shaydaanku ii sheekeeyo waxaan idhi buu yidhi war nebi maxamed mala isagu kolley meelaha waxbuu ka soo helayaaye intaan soo kacay ayaan intiisi yaraydna ka laacay buu yidhi intii yarayd aan nebiga u dhigi jirnay waan soo kacay bilo xadiis saxiix muslimku ku yaalla intii yaraydna waan cabbay buu yidhi markaan haddana cabbay ayuu shaydaan haddana i warwargeliyo wuxuu yidhi buu yidhi wayxak bal waxaad samaysay intii yaraydee nebi maxamed baad cabtay maantuu ku habaari doona ee ahlunaarkaad ku biiraysaa ayaan haddana isidhi buu yidhi anigoo warwarsan aakhiriya adduunba beeshay baan sidhi buu yidhi intaa yara caani dabeetana waan soo kacay buu yidhi intaan shamladayda yareed soo qaatay marada yaraan sita buu yidhi haddaan xagga sare saarana caga ay muuqanaya haddaan xagga hoosana xagga sare ay muuqanaysa hurdaa iga soo degi weyday buu marada yareed baan isleeyahay huwa buu leeyaho kolla madaxaan ku duuduuba kolla cagahan geliya xagga sare ay qaawamaa yacni xataa wuxuu wado ma haysto hurdaba way iga soo dhici weyday buu yidhi markaan cabbaar galgashay ee hurda iga iman weyday ayaan waxaan isku dayey buu yidhi inaan talo kala keeno waxaan sidhi buu yidhi war nebigii hadduu sidan ku yimaado oo gaajoodo oo ku habaaro ilaan liibaani mayside waxaan isku dayey buu yidhi inaan kaco oo muxuu samaynayaa marka kan middi baan soo qaatay buu yidhi dabeetana waxaan sidhi buu yidhi de haata nebigu yuu kugu gaajoone saddexda mid qaloo nebiga u qala neefafkii yararaaye meesha joogay ayuu soo kacay markii aan imi ayuun baan arkay buu yidhi haddana neefkiiyo durbaba xigsimooday oo caana ku jiraan dabeetana waan lisay buu yidhi siriyihiiba haddana dib bay u darareen waan lisay buu yidhi xoorkaa ka soo duulay dabeetana waan soo qaadoo nebigaan u keenay buu yidhi nebigiiba wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asharibtum sharabakum alleyla caanadee badan buu arkaa war caawa miyadan intiinii cabbin markaasaan idhi buu yidhi maya cabna ilaahay rasuulkiisiyo yaa rasuul allahi ishrab adigoo cab baan idhi buu yidhi markaasuu cabbay dabeetana wuu ii dhiibay buu yidhi markaasaan idhi buu yidhi yaa rasuul allahi ishrab cab ishrab markaasuu cabbay markaasuu ii dhiibay markaasaan idhi buu yidhi cab ilaahay rasuulkiisiyo markii uu nebigu cabbay oo aan gartay buu yidhi inuu si fiican u cabbay oo markii hore weelku madhnaana nebigu uu duceeyo wuxuu yidhi allaahuma asqi man saqaana waaطcim man acamana buu ku duceeyey buu yidhi markii aan waxba ooline uu nebigu weelkii waxba ka waayey yaraa markaasaan qoslay buu yidhi oo dabeetana qosol baan la dhacay
markaas wuxuu nabigu ugu yidhi إحدى سوءاتك يا مغداد حماها قمت كميدي ويانا محاد سميسي بيقول وأنا شيء قصدي وأنا شيء يقول وارتني وأنا حريص حق إلهي كتمية ما تقول هذا كلامنا كعسي تقول هنا لعباني إلهي رسولك سوى دين ولا بدنا نلعبنا عندنا الدين كمل يقول صلى الله عليه وسلم تلمامنا وصحابة غير مكاها يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي يسوي مغدينا ان markii بيت المقدس مسلمين ay furteen بيت المقدس ninka furanayay ciidankaasna ninka loo 10 المبشرين hogaaminayay عبيدة بن الجراح ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galeynaa saasaanu idinku heshiinaynaa laakiin furaha وحن بنودي بين أمير المؤمنين كانوا هاي ماضي سجانوا فراكور يشيريناي سيديبو كصابح أبو عبيدة عمر بالله الله وحدين ما كيسا سيد هذين ده هذا نوع ما خرس كاله عمر صابح وعرب فريه بيت المقدس إنه لو ريجو ماشنا سجى فراه لوديبو معاهدة دي لقالينا سداسي أيكو هركش وسوس عليه مركو ماشي إن يروسو شري أيوه صامر يدل دير يرب هلا يرب مدنا دبتنا الدابدي وفوشنين تعمر كده دقي والله بدي كبودنا الله بحي أيوه الله بدي كبودنا هلكم قصاقات نيف كيسينا سوه جامي الله بدي ناس كسر حصادي أبو عبيدة يعيد مدي مسلمين ترجي سود ويني يكهر يمو أبو عبيدة وحولي عمرو ما متشعل ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم وريني إن مقالة دتك دي مدح دينا يكو أركان سيدنا أدقو نكن فايداني عقار دوبا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر أريقي ودي بصدق أدقى عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بويري أبا عبيدة waxaan jeclaan lahaa mid aan adiga ahayn inuu yiraahdo Abu Ubayd adiga waa ka xishoonaya buu leeyahay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kale oo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahay law ghayruka qaalaha mid aan adiga ahayn ma warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana Umar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii Abu Ubayd waa ogiyay laakiin wuxuu yara rabay isagoo amiirul muuminiin ku muuqda amiirul muuminiin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado لكن عمر وحو كليه وحانو هين إنا كنا أذل قوم داد الدول ليسن بانو هين إلهي الدين تنبو نقو عزة يضدنا قد يقولي مركانو عرب هين أدول كي يشوقني داد الدول ليسن بانو هين شرني لكن إلهي وحو نقو عزة ينقو شرفي دين تطن هدانو كرا دي نبو لي شرفت ميلان دين تيضا هين إلهي وانا ذليني إلهي الدين بو نقو شرفي waxaan diinahayn haddaanu sharaf ka raadino waa duloobayna waxaan uga dan leenahay qofku mu'taz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidbidkana adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xeejisto balaan laba muqad laba qof oo kursi ku dul fadhiyaan tilmaamo Falastiin waa maqashaaniyo urur Xamaas la yiraahdo يهود جهاد كل شروس كدعيو دون ذا وحي بم يالي لغو قراعيو والاستفاعية urur ka ninka sameeyay hogaaminayay hagayay korso dul saara meel dhaqaaqdo jirkiisii ma jirin markuu wax akhrinayo waraaqda kitaabka quraanka oo akhrinaya inaan u dhalay rogi jiray maalin bay waxay dhaahdaan inaan ku dhalay baa seexday ka gamay si uu rogaabu garan waayo kitaabkii uu akhrinay waraaqdiisa arabku isku dayay inuu ku rogo meel dhaqaaqda arab uu leeyahay مع ذلك حق يهودات بهر تاغن يحي دختركي سايري واد اد بادو تمر دريس waxaad u baahantahay nasiino dabeetana wuxuu yiri may masaajidka hal leeyahay ramadaan bay heeday waa caawa soo jeedaya waa cibaadaysanaya soo jeeday isagoo kursiga lagu sidaa laga soo saaray masaajidka Israa'iil ka kursiga lagu siday inta uu adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantanimada cirka maraynta loo soo diray gantaal lagu dhuftay
يعني ninkaasi hamu siday jidna intaasu ka yahay itaalkiisu waa carabka dhaqdhaqaaqaya caqligana wuu qabaa laakiin isma odhan muqcad baatay qof fadhiya baa taan waxba qaban karin isma lehe wuxuu u taagan yahay inuu diintiisa iyo ummadiisa iyo dadkiisaba xoreeyo ummad dhan buu u ahaa maxay hoggaan ruuxiya oo hogaaminaya xarakaad dhan oo jihaad iyo isdifaac iyo wax iska rabaya dawlado dhan oo dunida waaweyn baa u adkaysan kari la ninkaasi aan waxba qaban karin ee kursiga lagu jiidayo ayay u adkaysan kari waaye hamiga sare aan xagga gaalkana idinka tusiyo saynisyahanka maanta cilmiga fiisigiska dunida u caansan ee mulxidka ee kutubtan maanta caankaa leh isna waa muqcid waa sida ninkaasi oo kale waa kursiga ugu sarreeya Cambridge University kursigu Newton fadhiyi jiray waa ninkii fadhiyay dhawaan baa la siiyay taqaacud inuu ka fadhiisto waa Stephen Hawking waa nin Ingiriis ah oo isagoo 12 jir uu ku dhacay shalal oo jidhkoo dhami shalal qabo oo aan meelina dhaqaaqaynin codka mishiin baa ka soo saara waana theoretical physics-ka dunida ugu qiimaha badan le maanta ee la tilmaamo waa ninkan le maxay qadaayaadkan lagu tilmaamo meelahan madow ee cirka la sheego the black holes aragtiyadiisa iyo waxa ku saabsan waa aqoonyahanka dunida hogaaminaya hadalka mishiin baa ka soo saara meel dhaqaaqaysa ma jiro muu isooranin war muqcad baa tayaan meelina u noolayne hankiisi wuxuu gaadhsiiyay aqoonyahanka dunida hogaaminaya cilmiga physics-ka inuu halkaasi noqdo laba nin oo saxaabada ka mid ah ayaa soo hijrooday dabeetana طلحة بن عبيد الله iyo saxaabigii la oran jiray bay la degeen labada nin way jihaad galeen markii ay jihaad galeen ayaa midi shahiidnimo qaatay midkii kale waa laba nin oo soo islaamnimadoodu fiicnaatay oo nabiga la dagaalgalay mid baa dagaaladii shahiidku noqday kii kalena sanad kaluu sii noolaaday bishii ku xigtay ramadaanna waa joogo waa dabeetana si caadi u geeriyooday طلحة بن عبيد الله صحابي اللي oran jiray ayaa wuxuu yiri riyaan arkay riyadu sideedaba qad takunu haqqan wa qad takunu khuza'balat yani nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya nubadii waxa ka hadhay waxa kamida maxay الرؤيا الصالحة marka riyadu dhabna waa noqotaa baatil iyo iska dhabna waa noqotaa saxaabigana uu riyooday wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii ay gelayaan dabeetana saddexda yadaanu ahayn buu leeyahay aniga iyo labadii nina kale kii dambeed dhintay aan jihaadka ku dhimanin ayaa la yidhi soo gal kii baa la horreysiyo horgalay dabeetana kii shahiidka ahaa baa ka dabagalay anaa isidhi galo adiga weli may gaadhin wakhtigaagii baa la yidhi buu yidhi markaa wuu soo baraarugay riyadii baa faaftay nebigaa loo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maxaa ula yaabaysaan waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow labada ninkii aanu islahayn dee waa dadaal badan yee shahiidoobay kii kala jannada ka horgalay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi alaysa qad makatha hada bacdahu bisana oo kan miyaanu sanad ka nolol dambayn buu nebigu ku yidhi markaasaa la yidhi haa waa ka nolol dambeeyey oo miyaanu ramadaantii dambe isagu soo gaadhin buu nebigu ku yidhi haye waa soo gaadhay baa la yidhi oo sooma soomin oo ma salaadin oo masaajidkan kuma tukanaynin sanad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi haa famaa baynahumaa abcadu mima bayna alsamaa'i waalardi buu nebigu ku yidhi xadiidka kan ibnu maaja soo warinaya culimadana saxiixa ku tilmaamayaan wuxuu nebigu leeyahay labadooda ajarkooda inta u dhaxaysa cirkiiyo dhulka inta u dhaxaysa in leeg baa u dhaxaysa yacni ninkii shahiidnimada qaatay sanadkii hore kani muxuu kaga badiyey acmaashii uu samaystay sanadkii uu noolo ay ka mid ahayd uu nebigu leeyahy war ninku miyaanu ramadaan soo gaadhin aanu kaasi sii maqnaa soo kani ma joogin buu nebigu nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qabaa'il baa u yimi waxay yidhaahdeen diintaanu rabnaa inaanu si fiican u baranno waa kaase waxoogaa nugu dar raggaaga ah
toban saxaabiyo rag waaweyn ay ku jiraan buu ku daray tobankii saxaabi inta meel cidlaa lala tegay ayaa dhegta dhiigga loo daray ala bireey qabiilooyin unbaa isugu yeedhay oo waxaa la yidhi intan baynu ka haynaa raggii laynaga dilay hebel iyo hebel aan uga aarun baa la yidhi tobankii ay nebiga ka soo kaxeeyeen tobankiiba way dileen 7 macrakaday markii hore ku dileen isdhiiba bay 3 idhaahdeen way idin daynaynaayoo markay isdhiibeen bay xadhigga u adkeeyeen mid baa diiday oo kii labadii soo hadhay na quraysh bay ka iibiyeen oo yidhaahdeen waa tii berigii beder wax laydinkaga laayee yaa aabihii u aarayo aanu nin saxaabiya ka iibinaa bay idhaaheen laba quraysh ka mid ah ayay ka iibiyeen oo yidhahdeen annagana waxoogaa na siiya kuwana aabayaashiin ugu aara dhacdadaasi markay dhacday labadii quraysh laga iibiyey mid ka midoo xidhan ayaa markii la dilayay wuxuu yidhi muus ha lay siiyo muusku waa baalka lagu xirxiirto shaving material ah waxa lagu shave garaysto waa la siiyey muuskii yaraa isagoo hayaa kuwii dilayay ilmo yaro ay dhaleen baa u yimi oo dhabta ka soo fuulay gabadhii ilmaha yar dhashay baa gergariirtay markaasi oo naxday dee ninkii ay dilayeen ee dilka ugu xidhnaayo oo midi yarna haysta ayaa ilmaheediina uu dhabta ka fuulay dabeetana wuxuu arkaysa wuxuu ku yidhi waxba ha cabsoonin ma kuntu liafcala hada ma inaan dilaabaad ka baqatay buu yidhi ha ka cabsoonin inaan kan dilo waxay yidhahdeen culimmadu qisadan waxaa laga faa'iidayaa alwafaa bilcuhuud xataa ka ku khiyaameeyey inaan la khiyaamaynin kuwii khiyaameeye soo xidhe iibiyey inaan ilmo carruuro ay dhaleen loo dilin ilmo carruura oo ay dhaleen iyaba waa kuway dilaya hadhow maxaa yaryarkoodu u noolaanayaan inaad odhanin islaamku kaama yaqaano walidaalik baa saxaabiga kani isagoo dilu xidhan oo la rabo in la dilo oo ilmahooda yar ay ku soo cararay oo dhabtiisu ku dhacay isagoo muddo haysta markay islaantii gariirtay wuxuu ku yidhi maa kuntu liafcala haada ha u malaynin inaan waxaa samayn kara anugu ma samaynayo qisada labadaan tilmaamaya waxay tahay iyadoo nebiga taasi ku dhacday ayaa haddana qolo kale u timo waxay idhaahdeen kuwii daliya qaara niman la yidhaahda bay ahaayeen iyo bani lixyaan nimankii la odhan jiray reer hudayla qolo kale u yimi nebiga oo racliya dakwaan la yidhaahdo waxay idhaahdeen annagana bal cidhana lagu daro diintu kama foga agagaarka iyagoo waa la aqbalayaaye 70 buu nebigu iyagana ku daray masaladani maxay tilmaamaysaa waa la laynayaa dadka inaan dacwo loo joojin inaan diin in la faafiyo waana la laynayaa inaan looga baqin waayo 10 hore uu diray nebigu in la diluu ogaa haddana markii la yidhi dacwaan weli u baahanay 70 buu dirayaa taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa in diinta la faafiyo in loo aqbalo khatar kasta inuu qofku aqbalo inuu ilaahay dartii u dhinto maadaama uu faafinayo maxay ilaahay kalimaadkiisa subxaanahu wa tacaala maadaama uu dad diin ugu yeedhayo walidaalika buu nebigu ma odhan war horaa 10 layga dilay ciddanba bixin maayo wuxuu tafaafiyaan balliquu canii walow aaya buu taagnaa war aayadda ha noqotee dadka ha layga gaadhsiiyo markaasuu nebigu yidhi 70 kale siiyey kuwa kana qoladanina 70kii bay kaxaysteen meel dhexe markay marayeen bay qabaa'il u heshiiyeen dabeetana nimankan aan laynay baa la yidhi ninkii waraaqda siday nebigu uu soo dhiibay qolada madaxda loogu dhiibay isagoo meesha fadhiya mid intuu xagga dambe iska soo taagay waran galiyay waa la dilay 70kana waa la dilay maxaan mas'alada tan u soo qaadanaya labadan mas'alo ee rajiic iyo mauna waxaan soo qaadanayaa hal shay inaan ogaano oo caqiidada islaamiga ku saabsan waa mas'alada ah qaybka in ilaahay uu ogyahay subxaanahu wa tacaala nebiguna intii loo waxyoodo quray inuu ogaa hadduu nebi maxamed qaybka ogiyey 2 goor lama dileen raggiisa hadduu qaybka ogyahay maxay lama dileen walidaalika baa ilaahay qur-aan soo dejiyey uu leeyahay qul laa amliku linafsii nafcan walaa darra
nabi maxamed oo dadka waxaad ku tidhaahdaa war anigu lafahayga uma hanto waxtar iyo waxyeello toona ilaa maa shaa allahu mooyaane ilaahay wuxuu doono mooyaane walow kuntu aclamu alghayba lastakhartu min alkhayr waxaad tidhaahdaa baa ilaahay leeyahay haddaan haybka ogahay khayrku maan badsan lahaa shar oo dhan ba waan u goyn lahaa de duu nabigu haybka ogaya ma shar baa haleeli lahaa waa inuu u jaraa un dee shar meeshuu ka soo socda waa inuu dhinaca kale ka maraa ولذلك بقى إلهي وحيد وحد هذا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء غيب هدان أوغهي خير كنوان بتصلح بناء محل الشين دبا إلهي سبحانه وتعالى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون واحد كنت هذا ورنا شقا ضيد وإن اندقه وبشاريه دد إلهي الرومينية مسائل كان صلوات الله وسلامه عليه بلبو نبغو هبارتمي صحابة لقى لا يدرادي هل بلا أي صلاة كستقنودي سقى هبار يلا ودي قبيل مو هبارتمني وسكع علين لها مركه هرو رقي سكع عشان لها دوقي هاي محي غيبك رستم مركي أي دقالمي المسلمين تي صحابة دي رستم أجنن كي هجامين عيد ماضي بيرشيا إيران عيد مديدي ayaa waxa la isku galay qaadisiya meel ku taala haatan wadankan Ciraaq loo yaqaano waa intaan madaayina Ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin waxay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hal wada hadle Sa'd ibn Waqas saxaabigii la oran jiray wuxuu u diray saxaabi la yiraahdo Ribci ibn Aamir ربعي waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisa yara wata oo hubkiisa xidhan ayuu meeshii yimi boqorku wuxuu ku tala galay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo dabeetana waxa la dhigay red carpetka wada taqaan Soomaha madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacas la dhigo soo ma taqaanin ay soo dul socdaan red carpetiska meel walba la dhigay dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halka ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baad ka muuqda nin dagaalansan وصو صعدي waxay yiraahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig wuxuu ku yidhi anigu idin ma imanay idinka ay yeedhay hubkayga ma dhigay anigoo waxayga sita hadaan rabtaan inaan u tago waa u tagay hadii kale waa iska noqonaya boqorkii baa loo tago waxa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo yani waa aragteen oo madaxda hub loolama galo waayo dadka kanima hadda ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan لكن نيكا مسلم كاي قول كيسو كو دقما ساسي درادد انتو قول سمايو غدري كما دميسي وحما خيامايا هدنا وحو هوبكايغا دغي مايا انيغو هوبكايغا سيتا hadii loo baahan yahay tagaya boqorka waxa la yiri boqorow ninkii hubkii diidin uu dhigo soo daaya la yiri ma hubkiisa faraskiisa yaraabu soo duleeriyay baa la yiri qadiifadihii red carpetka ahaa boqorka agtiisa markuu marayay baa la yiri intuu faraskii ka daadagay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigo mid ku xidhay bay dhadaan culimada taariikh mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay dabeetana wuxuu yimi boqorkii markaa su'aal buu weydiiyey maxaa idin soo saaraya wuxuu ka fakarayaa dadkan magaaja wadankoodii ka keentay ma waxan baa keenay haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wadaa dee waxbaa la idin siinaya iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo maxaa idin soo saaray baa la yidhi wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaanu dadka ka saaro dulmiga diimaha aanu u saarno cadaaladda islaamka inaanu ka saarno cidhiidhiga adduun waanu u saarno ballaadhkeeda isagaa cidhiidhi dadka saaraya min dayqi dunya ila sicatiha cidhiidhi adduun buu ka saarayaa ballaadh buu geynayaa ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray professorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro muxuu barayaa wuxuu barayaa waxyu sama warkii alluu sidaa ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan salaad buu nabigu galay
masaajidkii nebigu sida kuweenna kan qatiifadahan iyo waxaan ima oolin masaajidkii nebigu cariish buu iska ahaa caleentan timirta ka samaysan guduhuna ciid yahay dabeetana dadku markay doonaan iyagoo kabahooda sitay la soo geli jireen masaajidka iyagoo kabahooda sitana way iska tukan jireen nebiguna wuxuu u sheegay kabihiinnu haddii aad dabadda ku soo marteen dhulka ku xoqo unoo ciiddaasaa idiin daahirinaysa nebigaa salaad galay saxaabadiina way ka daba gashay ka daba xidhatay kabahoodiina waa xidhan yihiin nebi maxamedna kabiisii buu xidhan yahay calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna kabaheedii bay xidhantay salaaddii bartanka markay marayso ayuu nebigu labadii kabood bixiyey saxaabadiina iyagoo salaadda ku jira ay iyaguna labadii kabood iska bixiyeen walla salaaddii lagama bixin nebigu isagoo salaaddii ku jiru kabaa bixiyey saxaabadiina iyagoo salaadda ku jiray kabihii bixiyeen markuu nebigu salaadda dhammaystay ayuu wuxuu yidhi waxaan arkay idinkoo kabaha iska bixiyee maa xamalakum calaa ilqaa'ikum maxaa idinku xambaaray inaad tuurtaan nicaal kabihiinna inaad tuurtaan maxaa kaba isaga bixiseen ayuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen waxaanu aragnay adigoo kabaha iska bixiyey dee annana waa iska bixinay markaa u fiirso saxaabadda dhaqankoodu wuxuu joogay inaanay nebiga su-aal calayhi salaatu wasalaam su-aal weydiin maxaad kabaa u bixisay inaan la odhan inaan la odhan barorta kabaheena aynu iska gashanaanno hadhow baynu weydiin doonaa bal hadda wuxuu kaba ilaahay qoladaa jabiyey oo banu quraydo xaggeeda la qabtay oo ah reer banu quraydi nimankii yahuudeeda ka baxay ballankii ay nebiga kula jireen ayuu nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadii la socotay qofkiina yuu tukanin salaada casar banu quraydo meelaan ahayn laa yusalliyanna axadukum alcasra ila fi bani qurayda qofna salaada casar yuu tukanin banu quraydo uu gaadho mooyaane masaladan waxaynu ka garan doonaa haddii nas qur'aana ama xadiida fahamkiisu uu dadku kala faham uu ku yeesho inaanay bannaanayn in lagu kala guuro ama la isku dilo dadka muslimiinta dhexdoodii sidaa awgeed qoladan wuxuu nebigu faray qofna inaanu salaada tukanin ilaa iyo banu quraydo la gaadho mooyaane markii dhexda la marayey ayaa casar soo galay dabeetana qola waxay tidhi warhaadhay dee salaaddii way naga tegaysaa dagaalkiina waynu ku jirnaaye aan casarka u tukanno dabeetana intaynu istaagno casar tukanno aan ku dareero qolana waxay dhahaan may halkii uu nebigu yidhi istaaga inagoo istaagna mooyaane salaad dambe tukan maynayna wada qole waxay leeyihin warheedhe laa yusalliyanna axadukum alcasra ilaa fi bani qurayda nebigu wuxuu uga jeeday salaada wakhtigeedii baa la bedelay umuu jeedine wuxuu u jeeday degdega oo yacni dhaqso u tagaba waa looga jeedee salaadu waa wakhtigoodii ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta nusuus salaada raraysa ma soo degine salaada casardee casarkeedii aynu tukanno ee nebigu wuxuu inaga rabay inaynan meelo kale u jeesjeesanin oo aynu meesha gaadhno qolo kalena waxay dhahaan war suga marka hore yaa ku yidhi adiga wakhtiga casarku markuu liiqa gaadhay halkaase tuko yaa kugu yidhi nebiga soo nebigu ma xadaynin marka horeba in wakhtiga la tukado haa maantana isagaa yidhi yaan lama tukanayn bani quraydo la taga mooyaane amarka dambaanu raacaynaa bay dhahay ila ta horeba nebiga xadeeyo tukanin ilaa iyo wakhtigaa tukada iminkana isagaa yidhi yaan maanta halkaa mooyaane meel kale casar lagu tukanin qolaba fahamkeedii bay iska qaadatay qola waxay dhahay war anagoo tukanayna salaadoodii casar bay iska tukadeen dabeetana waa dhaqaajiyeen qoladii kale waa socdeen siday u socdeen baa cadceeddii dhacday waa wadeen maqribka dabadiisii bay gaadheen banu qurayda markaasay casar tukadeen nabigaa loo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii ay sameeyeen waxaa la yidhi dee markaanu dhexda maraynay baanu isqabannay qolana waxay dhahen war salaadda wakhtigeedii waa joogaan tukanno qolana waxay tidhi halkaa
labadii qolana nebigu ma canaananin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waayo labadaba dantooda waxay ahayd inay muraadka nebiga fuliyaan warkii nebiga inay fuliyaan bay labaduba rabeen laakiin sidii ay u fahmeen ama u fasireen uma kala gadisnaatay walidaalik waxaynu qisadana ka fahmaynaa masaa'ilka ijtihaadiga ah ijtihaadku haddii laba ra'yo kala gadisan labada caalima muslima ka ijtihaada yidhaahdaan macnaheedu maaha in dadka shan kooxood laga dhigo nina yidhahdaan kayga ku fayla nina yidhahda kayga ku fayla ee waa inay dad walaalo muslimiin oo weli hadafkii iyo wixii baa isku raacsan markii muslimiintii maka joogtay gaaladu ay dhibtay aad dhibaatadu ugu badatay ayuu maalintii dambe أبي بكر يصير هجرة نلقى حبشة دي مالها سكقبو مكو كبحة ميل برك الغماد اللي يده هذا مركو مريو أي واحد لكل مي ابن دغنة نين اللي يده هذا نين كان هو أضيق قبيلة قارة اللي يده هذا مشركين قبيلة قالت أيوه هي سلطانة ما وقاسة ما عاقل وحين شيخنا نكي بقى وحكوا يدا أبي بكر بوقرتي ورا أبي بكر وأين تريد يا أبي بكر حاجات وسعطها أبي بكر وحيري أخرجني قومي تلك يبقى يصوص عري مكة كمان بحينه تلك يبقى يصوص عري دبتنا وحان رباه نلك إلهينا نسك الصعود ربي عابده صايحنا النقضة صايحة وحلا يدا برجع ورا وحشري شري دد عبادة يسقب حصفرة وميلا يوصعدان وقاري ياري شرين سكنا غاغون waxaan rabaa buu leeyahay inaan saaix dhulka ilaahay ku noqdo oo ilaahay carrigiisa ku caabudo oo iska tagay le tolkay isaar buu leeyahay ibnu daghina wuxuu ku yidhi abi bakar oo adigoo kale nin la saara ma tihid macquul maaha yani abi bakar oo kale in la soo saaro waayo in lagu saarana ma aha inaad adna iska baxda taasina sax maaha buu leeyahay sababtu waa maxay fa innaka tuksibu almacduum وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وحكو يري ادغو waxaad ahaan jirtay dadka aan waxaysan qof waxsiiya waxaad ahaan jirtay dad nin qaraabada xidhiidhiya waxaad ahaan jirtay qofka culus nin culayska ka roga waxaad ahaan jirtay nin martida soora waxaad ahaan jirtay mashaakil oo dhan nin dadka uga gargaara Abu Bakar markaa maxaa lagu sifaynaya qof naaficad bulshada ku dhaxayd baa la leeyahay qof wax tara oo bulshadu waxay u baahan ninkan waa nin gaaleed kama warramaya aakhira iyo dadka hanuunin jirtay kama warramayo isagu wuxuu wax ka warramaya waxtarkii adduunyo saadaradeed wuxuu leeyahay war nin tolka xidhiidhiya oo masaakiinta wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo nawaa'ib alxaq oo dhan dadka ugu gargaara baad ahayd saadaradeed nin la bixiyo ma tihid buu leeyahay ibnu daghina weedha uu ku leeyahay abi bakar waa weedhii khadiija ay u daliishanaysay nebi maxamed nebinimadiisa khadiija radia allahu canha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxii uu ku soo degay koowaad wuu cabsaday isagoo cabsanaya buu guriga yimi oo le iddada oo ay ka khadiija markaa waxay tidhi wallaahi laa yukhzika allahu abada ilaahay baan ku dhaartee inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin nebi maxamed haddaad tahay balaayo arki maysid bay leedahay waana waxyigii ugu horreeyey waayo maxay sidaa u leedahay dhaqankiisii bay ka warramaysaa intaan abi bakar lagu sifeeyo kale ku sifaynaysa waxay leedahay waxaad ahayd nin qaraabada xidhiidhiya oo dadkaan waxaysan wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo wanaaggaasi sameeya qof wanaagsanna wahal jazaau lixsaana ila lixsaan de qof wanaagsanna alle subxaana wa tacaala dhib ma tusiya bay leedahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yuhuudiya ayaa nebiga shaqaalihiisii ka mid ahaa dabeetana maalintii dambe waxaa loo sheegay wiilkii inuu xanuunsanayo oo gurigii aabbihii uu jiifo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay dabeetana gurigii wiilkuu yimi wiilka madaxiisuu fadhiistay wiilku aad buu u xanuunsanayaa marka nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay inuu sii socdo
aslim buu ku yidhi waryaa wiilow war islaam wuxuu ka cabsanayaa nebigu wiilkaasi intuu gaalnimo ku dhintay inuu cadaab gala de dabeetana wuxuu ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam war islaam wiilkii markaa aabbihii buu eegay aabbihii baa wuxuu ku yidhi atic abalqaasim maqal wuxuu nebi maxamed kuu sheegayo yuhuudda iyo dadkii wakhtigaa noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi yahay cid waliba waa garanaysa laakiin dana iyo masaalix kale iyo wax kaloo ay ilaashanayaan bay u diidanaayeen waxaad ka garan kartaa kuwii ugu waaweynaaye ka soo horjeeday muxuu abujahl abujahl culamada taarikh waxay soo naqlayaan inuu lahaa reer bani hashimi annagu waanu beretami jirnay laba qabiilo loolamaanu ahayn waxbay bixiyeen waxbaanu bixinay kanbay sameeyeen wax walo ay sameeyeenba waa la samaynay buu leeyahay nagamay badinin haddaan reer bani makhzuum nahay nagamay badinin reer bani cabdimunaafkani ama reer bani hashimkani nagamay badin ilaa ay markii dambe sheegteen buu yidhi nebi baa naga mid ah haddaanu anagu nebi weyne buu yidhi wallaahi baa nankooda u rumaynaynin abijahl wuxuu naarta la galay qabiil buu difaacayay suu reer u difaacayuu naar galay reer hebel hadday nebi heleen buu leeyahay annaguna aanu nebi weynay kooda raaci mayno haddii aanan nebi helaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa inuu nebi yahay dee mucjizaadkiisii baa muuqday dhaqankiisii baa muuqday akhlaaqdiisii baa muuqdatay waxyiga ku soo degayaa muuqday cid waliba waa garanayso aragtaa inuu nebi yahay laakiin masaalix kale dadku markay masaalixda ilaashanayaan hiraqal boqorkii la odhan jiray markii looga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam tu waraaq u diray nebigu uu akhriye looga warramay ee uu waraystay nimankii safarkee u yimi oo 14 su-aalood ama 13 su-aalood weydiiyey ee backgroundkii nebiga oo dhan loo sheegay ayuu wuxuu yidhi sidaa aad sheegaysaan hadduu yahay halkaa aan fadhiyaa buu qabsan doonaa haddaan awoodana waan dhaqaaqi lahaa buu leeyo meeluu joogo haddaan tegi karayo cagihiisaan maydhi lahaa buu tilmaamaya dabeetana wuxuu isugu yeedhay xaashiyadii boqortooyadoo dhan iyo wadaadadii kiniisadda iyo wixii oo dhan buu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi warrinkaasi wuxuu sheegayaa waa xaqa aan raacno albaabadana uu soo xidha meeshii uu kula shiraya albaabadu wada xidhay tana wuxuu ninkaasi waa xaq wuxuu sheegayaa aan raacno mar quraa la qayliyo waa la cararay bes soo noqda buu yidhi idinkaan idin eegayo un mowqifkiinu meeshuu taagan yahay dee kursigu waayayaa ilaane siyaasiyiintu diin la-aanta in badan kursigaa badda oo haddaad kursigaa ka riixi mayso wuxuu is yidhi kursigaaga hawaaye marka hiraqal wuxuu naarta ugu xagga gaalnimada ugu sii socday wuxuu ilaalinaya kursiga idan nebi maxamed inuu xaqiya uu garanayay odagan yahuudiga markaa inankiisii wuxuu ku yidhi yaraa atic abalqaasim waxa uu kuu sheegaya aqbal dabeetana wiilkii yaraabaa ashahaatay islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku farxay markaa islaamnimada wiilkan yara wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahadle waan mahadinaya waxaan ammaanaya ilaahii kaa yar naarta ka badbaadiyey wiilkaa u shaqaalaa buu nebigu wuxuu kala cabsi qabay inuu naarta galo idinku kuwa idin shaqaalaa maxaa ku samaysaan wax diinta u sheegay miyaa leedihin mise waxaad tidhaahdaan markay sii baxaysana sii baadh inta kalena ha shaqayso yani materialkunbaa ka fekertaan waxay dadkan inaa badbaadisaan hadduu kaa soo horbaxo qof bini aadana oo gubanayo dab sudan yahay maxaad samayn lahayd waxaad isku dayi lahayd inaad demiso socankaa ma aha qof bini aadan oo gubanaya hadduu kaa soo horbaxo asaad baktiin karto waxaad isku dayi lahayd inaad demiso qof bini aadam oo indhale hadduu kaa soo horbaxo god daba ku socdo maxaad yeeli lahayd meeshanoo dab ka shidan yahay labada indhoodna ula iyo uu kusii socdo maxaad samayn lahayd waad ka qaban lahayd xataa haddaanad ka qaban karin waad qaylin lahayd warka joog ka joog baad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda bale ilaahay ambiyadiisu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midi ilaahay uu tilmaamaya wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixdu iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashriku fii amri muxuu u dalbaday waxaasoo dhan kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira buu leeyay ilaahaya waxaan kaa dalbayaa buu leeyay haaruunna inaad nebi iiga dhigto
walaalkay haaruun inaad nebi iiga dhigto oo igu xoojisid oo arrinka ila wadaajisid waayo kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira markay kaalmada dalbadeenee fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa maxaa fircoon markuu tegayay la yidhi walaa taniyaa fii dikri baa ilaahay yidhi fircoonkaa xoogga badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga baa ilaahay yidhi zaadkiinnu laakiin waxa weeyaan walaa taniyaa fii dikri ha ka noogin aniga xuskayga subxaana allahi wabixamdihi iyo laa ilaaha illa allah iyo wixii la mida kuwaa ha ka noogina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba ilaahay nebi yuunus baynu saynu soo sheeganay uu kaga warramay nebiyullaahi muusa ilaahay ka warramaya markii nimcadu u cusboonaatay rabbigii markuu weydiistay intuu jeclaaday inuu arko ilaahu aan ku arka la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arki kari maysee bal hadda buurtan eeg hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad i aragto buurtii baa dhalaashay falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk ilaahayow adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xumo adigaa ka dheer waa kuu toobad keenay buu leeyahy wa ana awalu lmu'miniin baanan ahay ka koowaadee ku rumeeya inaan adduunka laguga arki karin nebiyullaahi zakariya markuu dalbaday inuu aayad helo ilaahi buu barye cajab qabta karaamaadkii maryan markuu arkay ayuu barye cajab qabta ilaahay weydiistay rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahay buu barye cajab la barye baryadu baryayaa waa maxay waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganaya laakiin wuxuu leeyahay adiga agtaada waa ka suurtagal ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso markii horena caaqir bay ahayd da'ina waa u raacday iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo mala haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaahu aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan 3 maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa la yidhi qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar وصبح بالعشي والإبكار إلهي سبحانه وتعالى عيسى كورمي نبي الله عيسى دبتنا وحل يدي عيسى وماذا يردتك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهي بقول لقينا يوحورا لها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بوح والرمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بل قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى هذا واكن جد كيو سجانا دت كوجي الراعيانة أنا جاي أنت الراع ضيبة وسبحان الله وما أنا من المشركين كل واقبال لي إلهي وحينا ورمية مخلوقات كأكتي سكد الدو ملائكة الله إلهي الشقاد ودبينيتي وإنا لنحن المصبحون بيلين وإنا لنحن المصبحون جملة اسمية لا أتكيي أدوات التوكيد ليس جوجي أي كشيغان يان ملائكته شقاد ودبينيكاتي وإنا لنحن المصبحون إلهينا وفريا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقولون واشيكتين ربنا واشيك ربنا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون
kala go' ma leh وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحين ورمى يا جنة دتك لجيانا إيانا شقدود ويني كنطي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي يجانا شقدود أبا إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة هذه قرآن كسيدة وبالبلادية أنت النصوص كتجانا سوق هذا ناي كبد أنت أنشاقي وهي قربان السلوان قري كريواي قرآن كأنت قصار ارتي تسبيح هي تحميد ترمله بي أبدنتي إلهي سبحانه وتعالى ينفريه قور والبا وقت كستو آدنا وشيغي كراون قرآن كوحا كنت الله يدول لي تسبيح صدا صبح هبين صغر دحي وابري حد قرد قور كستبا إلهي وحلي تسبيح صدا إذن تسبيح دو وحي كمتهي وردقا مركو هرم مطلقا بي كمتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سيقاد أتربى أن السنة النبي عليه الصلاة والسلام بوصارت قاببك الله تصبيح سنة أحاديث تهداد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جذر الصبح كصاررتي أما حمد كصاررتي أدبي يتربى دينينا تلمامي النوعيات كتصبيح ذا الله لي ماده دي صلاة الدمان تدنا صبح باب الله هذا ولذلك بعلماء وحده صبحة الضحى أما وك عمر لقاش جانوا لو كنت مصبحا لا أتممت علماء بدبايد هذا الصبح هذا أنت بدنت السنة الله هذا لكن مفسرين بدن باب حقبان مع التكلين الله هذا قورما وقت والبوالة تسبيح حالة كستات كتشرته مركاد يابتا سبحان الله الله هذا marka dhibi ku qabsata subxaan allahi wa bixamdihi la yidhaahdaa marka nimcaad hesho ama ay kuu cusboonaato ayaa la yidhaahdaa farskaaga markaad fuulaysaa la yidhaahdaa ama daabadaada gaadhigaaga subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunnaa lahu muqriniin nimca cusub markaad hesho sidii nebi muuse la yidhaahdaa subxaanak markaad ducaysanaysaa la yidhaahdaa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu markaad dembiga qiranaysaa la yidhaahdaa qisadii suuratu nuun ku taale asxaabu ljanna qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun idan xilli kasta hadday dhibi ku haysato hadday nimco ku haysato haddaad yaaban tahay haddaad wax kasta oo duruufaadka ka mida waa la tasbiixsadaa tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana koo waa inaad dembi dhaaf hesho nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin 100 mara gufirat dunuubuhu wain kaanat midla zabad albaxr qofka yidhaahda maalin 100 jeer سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذنبي سال دافا وإن كانت مثل الزبد البحر حور كبد وكله هداي لما موجد بد هداي لك تهي والله دافا ابو النبي عليه الصلاة والسلام ذنبي قال له دافيا وحي شدة يدبكو هيستا لغاغا دافيا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحي عديد اللابتك أجرى لغاق دافية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين